markii dawladda India xornimada ay u dagaalamaysay gumaysigana ay ku jirtay Ingiriiskana ay gumaysanayeen نتاجي جندرا بوس صاحبكيس جيشيا way baxeen waxay la kulmeen Hitler waqtigaas inta loo gudo jiray India ciidamada dib u habeen inay ku sameeyso markay wada kulmeen arimo fara badan ay ka wada hadleen natiijo wuxuu u sheegay inuu u abuuro super bili aadan daaba ah qofkii isticmaala daawadaasna qof walba awood leh ka hortagi kara awood kastana ka hortagaysa kadibna wuxuu balan qaaday inuu diyaarado fara badan farta ka saaray ciidamadana uu taakuleenayo natiijo markuu la wadaaga arrinkaas xoga yar natiijo shaki ayuu dareemay oo ah in mustaqbalka India idil ay baabay rabto hadalkaas waxaan maqlay mid kale socday saaxiibkiisa ay jeesiyay leeyahay wuxuu dareemay mustaqbalka India inuu yahay natiijo cabsi saydan uu dareemay جندرا وأوصف بحي شبارك وحوم هذا هتلر عيد مديسة عيد كتان معناه وحيواه كيميكات إسلام كانوا وأوصف هذا سامبل كانوا وأوصف هذا كيميكات قاعدة درسوا كل وأوصف هذا جندرا مكو صوب بحي حسوا هذه إنديا جندرا جزية إنه هذا هتلر أيا أرن كاسي مخلي كدبنا عيد ما أيو دياري أو قاسي قعنت أيوسو ليان جندرا جزيان إندينا مركز حل مدة أي أدبال دقاين مركز أدبال دقاين واحد هذا قصة عجيبة هيسوين كودا أي قادناي لكن ما حد عمانتس iyadoo sidaas ay tahay ninkan uu soo xaday daawada wuxuu ku fikiray daawada inuu dhigo meel cidna aysan ka arkin waardiyaal ayuu u sameeyay jiisiyaan markuu qariyay daawooyinkaasna meel uu dhigay isla markii wuxuu ku fikiray wiilkiisa inuu waqti la qaato waqti isagoo wiilkiisa la qaadanayo la sheekeysanayo waxaa soo weeraray ciidamadii Jarmalka ah oo Hitler soo diray isla markiina xabada ay ku fureen gurigiisa isagu wuu ku dhaawacmay jiisiyaan jandara sidoo kale wiilkiisana fiiraha xabad ugu dhacday wiilkiisu arkay oo dhulka yaala naftana ay ku daba yar tahay كيسنا للجو نكي نفتيس أيها هلس ويلكيس سيو بدبادي دابدي أيها سوقاتي أو سجى ملكو قري سيم أنا ويلكيس وبدبادي نرشي سنة وبدبادي ويلكيس أيها دابدي سي حقايا ويلكيسي وسونا أود أي شيء كدبنا عدوي أي اسكدعيان إلا يهدها لما أوجا ميرتان يسابستيك ماشي الجوجان يحرمتو ماشي تاي
وادي سلامة daawadayaal maanta wuxuu qarax weyn ka dhacay Tini dhankeeda galbeed qaraxaasina waxaa naf ku ay dad fara badan oo meeshaas jooga qaar kale tan waa ay ku dhaawacmeen dowladda dhexna waxay baaritaan ku haysaa qaraxii meeshaas ka dhacay wixii ka dambeeyay iyo dhibaatada uu geystay intaba laakiin qaraxan waa kii ugu horeeyay meeshan ka dhaco dadka shaqada kule meeni baarista ayaa dadaal fara badan meeshaas ka wado si ay u soo saaraan qaraxaas iyo sida uu ku yimid balse shaki ugu weyn ay ka qabaan meeshaas waxay tahay in hore uu qarax meeshan uga مودن دغيسو ادرتنا تري ku taal adiga maxaa u doortana waad aniga youtube channel leeyahay channelkayga barnaamij uu sameysnaa meesha markii aan tagay waxaan arkay rag isdagaalay xabado isku furay isla markii qarax dhacay qarax awoodiisa ay qaday bali ayaan ku dhacay kadib wixii dhacay ma sheegi karo ma noogi anagoo idil waa ognahay adiga burcad inaad tahay ma khiritit marka maxaa sugi maxaa qirtaa sees u qirtaa arrinka dhacay waxaan ka ogaa bayrtay ma jirto igu kulsoonow yaq waxaan ka ogaa malaha runta noo sheeg bambadaas xagee la dhigay argagixisada ka dambeysana qoladee waay taliya sida uu malays waxba uma jiraan anigana bamkaas shaqo ma meelaan ku dhacay kadib wax dhac ma sheegi karo hay asxaabtaada dhan runta bay sheegeen adigana aamusnaantan waxba kuuma soo kordhinayso ee runta sheeg adiga intee kala doonaysaa inaad qarxiso jaaniska ugu dambeeyay ayaan ku siinayaa hadal runtana noo sheeg taliya ninkan hal hadaloo soo celcelinaya marka aniga ilma ahan been inuuna sheegayo waqtigoo keliyaan kaluumanayna aan iska fasaxno nin ayaa jira ninkan baritaan ku samayn kara ilaa hadda ma jira qof wejigiisa arkay wuxuu samaynaya iyo wuxuu ku dhaqaaqaya cidna ma ogaa karto waa qarsoodi waa ray aqaraad wuxuu iskugu yeeraa mar walbo agente x ما واحد قرشينيسا عمرك انت كلنا ماشي تلي مع سمنسا ميقع بسينيسا ما تقانا اريغا ماندوس اوبرنتي واري لاتينا اريغا لاتينكا ودنبيله markii uu isku sheego inuusan dambi lahayn goobta dilka uu ka dhacay ama dhibaatada ay ka dhacday isaga laga soo qabtay farihiisa sidoo kale waa laga helay haddana anagu naga dhaadhicinaya dambiilahaas inuu wax dambi lahayn C4TNT iyo IED midada kale to waan ka dhargsanahay wax walba oo adiga aad geysatay waxa ay yihiin kaliya waxaan u baahanahay inaan ogaano sababta ka dambeysay maxaasan u samaysay anaga inta ayaan ku keenay caddayn walba waxay sheegaysaa inaa adiga dambaysa xariifaa tahay hadda meesha maxaa ka sameeyeysay sheeg tali horta aniga youtube channel aan leeyahay barnaamijaan samaystaa meeshaas waxaan u aaday barnaamijkayga inaan micnaha quruxsado meesha markii aan gaarna dada isku xabadeeyeen baliyaan ku dhex dhacay horta aniga kuma fikir waa badbaadaysaa laakiin waa badbaade kul oga haweeratii ma jirto qandhaxunna waa dareemay isla markii waxaan kabar helay idinkoo ii soo wato meeshan ikoon baaritaan ugu sameynaa maaskiga ku xiran ilaa hadda waxa wada aniga ma aqaan aniga waxaan ogaa habeertii ma jirto kubra iska daa igu kalsoono warkii intaas uu ka yahay qarax markuu dhacay kadib aniga wixii dhacay gadaal yani ma sheegi karo intaas uu kaliya waaye xariifna maahi niya maya agni adiga horta waxaad ogaataa wax walba qaab inay leeyihiin hawada balliga biyaha wax walba qaabay leeyihiin xitaa konteynerada midada kaleta adiga dab micnaha aad rabtaa inaan nagu shido soo ma waxaa gudaha ku jira soo bixi macquul maaha shay walba asalkiisa inaad bedesho aniga xogtaada waan ka dheregsanahay youtuberaa tahay dadkaa barnaamij u samaysaa dadka wuxuushintaa ka hortagtaa xirfadooyin kaleeto waa leedahay micnaha baddaad nadiifisaa xeebaha dhirta sidoo kale waa hala ilaaliyaa tiraahdaa burcadaa ka hortagtaa niyahow nina caadahinaa tahay qaraxa wuu dhacay waxaa leedahay aniga ma gaadin ecoterrorism soo laguma tilmaami karo ecoterrorism maxaa la dhahaa tali aniga waxaa ka bada ecoterrorism maba aqaanba
يا اخي انا يوتيوبر او كليا يوتيوبر انادن اهين ان تا انا go'aan keeda iskala waa ku bariyay aamin aniga may waxa sheegos youtuber ana hayeek basti youtuber aad ayaa lagu siiyay hadartan halkan waxaan ugu waceynaa agni oo ah nin youtuber oo dunida ugu caansan fayuuskiisan aad ayuu ugu sareeyaa waa ninka kaalinta koowaad ugu jira wadanka Hindiya hadartan hadiyad ayaan siinayna waxaan guddoonsiinay mudanaha hambali waa maasantahay ها وما سنتي ان دمانتين وانيدي سلام horta bilaadanka ogaada xirfad ku dugan uu leeyahay talent goonin uu leeyahay qof walba oo nool yani qaasatan bilaadankan ka hadlayay waxbuu sameey karaa laakiin wuxuu sameey karo shimo ogana ma taqaana markii uu qabto oo lagu dhiirigeliyo en super bilaadanka idii sheegayna kurkiisa ma ee gudihiisa wax walbana waa qaban kariyaa wax idinka asdhihin hal mar xataa ma awoodo mudane dhageyso Superman iyo Batman oo kala miyaad ka wadaana adduunka dad sidaas camal miyaa joogo ها waa suurtagal way jiraan haddii aan dib ugu laabano buwaagta anaga aan leenahay aan qornay dad fara badan oo ka sheekeynaa dad kale agtaradeena maaragtay waxa kor u qaada magacooda waa qisooyin hore ay u sameeyeen haddii aad maqashay ku Dani Jawara awoodiisa oo la socota markii uu yaraa iyo markii uu weynana ilaa iyo markii uu ka dhimanay sidoo kale ilaahay ninkii yiraahdo Amina Sadi macnaha kurkiisa waxa ka baxay waa iftiin tada kale ninkii yiraahdo Maahi Sadi waa dagaaliyahan goobta dagaalka 100 qof ayuu ku diri jiray ninkii yiraahdo isagana kamaliidin laatiin kurkiisa waxa ka baxay waa iftiin siyaada ah waa koronto yani dadkaas jiray oo macna super bilaadan ah super power hadana qofta maxaa sameynaya aad ii sheegbo taas aan rabaa ogaado in runta dii aan ku sheego maxaa dhacay een korontada inay taan u maleynaya su'aasha dib ugu celibar super power soo ma dhihin يعني أود قاسة دي أنا هلا بالآدك بربر كوسو صعدة أي كبد بعد لها dad fara badan oo doqomina jira bilaadanka inay la dagaalamaan oo gol xitaa geedaha guraan sidoo kale qeyraadka dabiiciga dhulka hoos jira ay qodaan bilaadanka taas wuxuu keenaysaa dhibaato حيوانات بري يبد كنول أي جرة أو قاركود بري أي كنول هذا وكوين هذا كمان وحاء وجتا بيه إنه كنول هذا إندينا ما لفر بدن الوضع الحس تجا أي اللي ده نفر بدن وعدو وحجرة ربا وضع كيني إني بربريان سنادو كور ويجرين هذا ويجران دينتين إلياشين هديه دقن كينا حيوانات كينا دمانتو نبات قر أي كسميين حيوانات كينا وقارسنا كديون دبدا أي جينيين markii ay qalaan kadib waay tada kale libaaxa duqa wala laayahay deerada sidoo kale wadakan wala laga laayahay mukushabalka sidoo kale wala laga laayahay logistic sidoo kale wala laga laayahay sidoo kale boolabooladii weyneed iyo weerweerada saad u taqaanaba wala laga laayahay qolada Great Indian Bastard warbixin ay sameeyeen kadibna maashum ay leeyina tagnay een waxa baaritaan ku sameeynay weerweeradii 10 ayaan ka soo faa'iidnay super power hadii aan halaha waxyaabaha qeyraadku idilan difaaci laha si mustaqbalka caruurteena jiilka soo socda aan u badbaadiyo idinka awal marnad isiisan waad ku maasantiin taa bedelkeeda waa inaad insiya geedkan waa inaad ilaalisaan haddii aad korisaan oo ilaalisaan oo sida caruurtiina oo kale aad uga dhaxdirtaan ogaada caruurtiina inay idin ilaali doonaan oo idin difaaci doonaan dhaba ama dheera ilaaliya markii walaal hal kiilo kusbiri ayaan u baahanaa kiiladiisa mee khawaay siyad rubi waay yani bombila la salama okaadi wiilkayga xogaa sug yani bombila lama هوي جوكسا كده بريك everywhere
taniish dadka dhan way dabaaldegaan adigana halkan ay joogtaa kaliya halkan maxaa ka qabanaysaa subar bilaadanka raadinaya ayaan helay sanado fara badan baaritaan ku sameynay ugu dambeynna waa helay ninkaas fiiri bal meeshan canuga yarka ayuu badbaadiyey isagoo awooddiisa isticmaalaya wax dhibaatana ma gaarin canuga saaxibi dhegeyso waxba adduunyada ka dhaxay aniga midaas ma ogaan karno arrinkan caqligal ma ahan dabcan waa laga yaabaa waxyaabo fara badan oo dabiiciya way iska dhacaan inta badan taas darteed waxaan iska dhahnaa taas macnaha subar bilaadan yaaqay saaxiib sheekada mid la aamini kara maahan kababadis waa naga dhaaf yaaqay marabne mar walba waan kuu sheegaa waxyaabaha filmaanta ka dhacaya ha aaminin ayaan ku dhaha laakiin waa diiday horaan idinku sheegay waxaan idhaha waxaa jira xibaan dhulka 120 fiid u jira dhulkana ku nool waa aamini weysay waxaad aamintay markuu soo baxay filimkii Hollywoodka ahaa Jessica Park waxaan ogaatay dinosaur inuu jiray saas darteed ilaa hadda wuu jiraa ninka la yiraahdo subar bilaadan dadka way aaminayaan subar human adduunyada inuusan ka dhamaan dilaaga duurka qoraal kastaad aniga iga qorto wax ay iga tarayaan malaha ima istaajin kartid aniga marnaba tag waxba kama ogid soo maha sifraaji dhimashadiisa ya maya taliya okay aan iska dhahno micnaha balada markii lagu siinayay iyo isaga dhimashadiisa qadare laakiin baakurkiisa markii aan fiiriyo waxaan ogaaday beecada inuu ku shaqo lahaa yaray qortay waxa markaa soo qortay kadib isaga waa uu dhintay saas ma ogtaa horta forest killer bisha hore aa la daabaca taliya soo jiran horta qaabka dhimashadiisa ay ku dhacdo wada la socotaan u malayaa inuu isdilaan ogahay jaraa'idkaana ka arkay yaqay horta qafaa wariyaa jira oo dadka madadaaliya waxyaabahaas in isagaa soo daabacay mid ma la socota horta isaga dhimashadiisa horta waxaa la yidhi waxaa loo isticmaalay wax la yidhahdo biotemia riboodka markaan akrinayay ayaan ku arkay biotemia isagaa lagu diray macnaha madaxa loogu diray kadibna gudaha ay u degeen beerka iyo wadnihii way qalaleen sidoo kale dhulka kusoo dhaclaya soo kusoo dhici karaa yani qamrigu iska badiyey waa soo dhacay maskaxdiina waa doorsoontaa la leeyahay dabeelaa imaada miyaa waaba yaabe mise reeraa qaraadaa imaado ninka galagamay mise shadaama imaada xataa maxaa ii weydiinaysaa laakiin tali arrimahaas shadaanka xogtankaaga xog sacan waaya agni maxaa yeelay riboodka wax kaloo soo saaray isagii markii uu dhintay kadib macnaa intuusan dhiman koraan dhaho yacni xoogaa wadnihiisa waa shaqaynayay waana neefsanayay laakiin macnaha baalansigiisu waa qoorta wax dhaabaca ugama oonin oo dhaabaca haddana macnaha jodo shamse wasaa filinkaas la yirahdo waa fiirstaan u malaynaa oo wax walba burburinaya isaga si toos waxaan mudileen laakiin dadka wuu suxinay mudane marti ayaa noo timaaday muxuu wadaa xog ku saabsan qarax yuu yahay oomkaaraa la yidhaahdaa securityka balaas ayuu codsadaa asiga laakiin allakeetaa aabi gabar iska mashquulsan waaye dhanka siyaasad ayaa cadaadis ka saaran lama hadli karno baaritaan kas weynaya maataa qoftaas ma fahantay amar sukuurad caalami waaye amarkayga qaado soo adigni waxaana shaqo ku leh ma dhexda igili rabtaa taliyo kuma fahmin yaaqi ma fahmaysid miyo okay wax yar berigan qaadahayna agni
mudane oomkara saynisyahanaa tahay agaasimaha medical research followers waad ku maasan tahay maadaama meesha wadahadalka soo xaadirtay amnigaagana waa suganya maxaa yeele adiga iga codsaday noloshaada inay halis ku jirto waana ku badbaadinaya waana ku difaacaya middaas run ahaantii waad ku saxan tahay adigu dhibka noloshaada ku soo wajahan ila balse waxaa iga su-aalaa nafsadeeda inaad difaacayso middaas ayaa ii damaanad qaadaya taasaan rabaa inaan ogaada mudane oomkar marka hore ii sheeg dhibka ku haysta waxaa laga yaabaa dhibka haddii aad ila wadaagto inaan kugu ciqaabo amaba aan kugu difaaco hindiya dhaqaalaheeda hay-ado fara badan ayaa gacanta ku dhigay weliba waxay gaarayaan ku dhowaad 50 hay-adood waxaana lagu yaqaanaa black sociality 2 meelood marka lagu kala qaybiyo total ahaan waxay noqonaysaa 9 number wax kastoo qaniimo ah saxaafad ha noqoto TV iyo sidoo kale teknolojiga intaba anaga ay noo simaadaan oo maba jirtaba waxaanan annaga amrin amaba annaga dhankeena aysan ka soo bixin cid samayn karta black society waxaa xukuma hogaamiye u ah DK waana kalsoonida koowaad sidoo kale waxaa jirto asagu waa wiil aad u daayar sidoo kalena dowladda India wuxuu siiyey hub casri ah hubkaasoo weliba markiisa horeba asaga dhankiisa ka socday si uu ayaga ugu caawiyo hubkan olojeeda ayuu u siiyey raggan gangistarada ninkan la yiraahdo DK wuxuu la yimaaday paralytic sickness runtii waxaa kaloo jirta naag uur leh ayaan siinay si aan u xukunno calooshada cunuga mar wadhigeyso anaga waxaan ka soconaa xarunta dhexe ee baaritaanka dadka ayaana daaweynaa hadda halkaana anaga waxaan u nimaanaa adiga in aan garab ku siino 250 caruur ka badan ayaan daaweynay haddii aa u baahan tahay xataa waa kana feelka waa fiirin kartaa hoo laakiin waxa ku weydiina meel go'o sidee ku koreysaana adiga ii sheeg wax kale maan hal abuur kambanigeena uu sameeyay waa marwo ee gabadheeda mar labaad lugteeda haddii u soo baxday ee karto ayada ma socon kartaana ii sheeg bal aha waa soconaysaa natiijada maxay noqotayna runtii resultigii waxay noqotay hal cunug inoo hore canugaasna aniga ma doonayo bataatan baynaan dilo jirkiisan baaritaan ku samaynaynaa haddii aan isdhaano waxaa laga yaabaa dhibaatooyin kale annaga in ay noo imaadaan daawooyinkaasna in aysan noo shaqayn mudane omkar aniga go'aankaaga halkan kuma imaanin iyo weliba inaan ku dhegaysto tijaabadan waa inay hirgashaa muhiimaddeeda waxay tahay tijaabadan in la hirgeliyo oo keliya ama xayawaana lagu hirgeliyo ama bini'aadam sidoo kalena carruurta waa inaad soo diyaarisaan idinkana banaanka aad aadaan aniga ayaa imaanaya markaan imaadana waan idiin soo sheegaya waa inaad iga warsugtaan marka great job okay tijaabada waa lagu guul daraystay mid kale cusub waa inaad ii keentaa sanadka markuu ahaa 1940kii wuxuu asaga qorsheeyo kaliya ayaa la samayn jiray laakiin hadda dad kalaaba soo baxay oo la kala dhaho DK iyo Krishna qof walba waxaan u malaynayaa inuu ogyahay sababtaan anaga shirkan iskugu wacnay soo maaha aan ka wada hadalna dhimashadii safrage ninka ahaa ma fahanteen hadda maxaynu ka wada hadlaynaa ninkaas wuu cabay ka bacdina wuu isdilay
waaye maxaan kaloo ka wada hadlaynaa shil maaha ma fahanteen dil iska caadiyana maahan ee waa dil qorshaysanaa qof asaga la joogta ma lahan sidoo kalena qof soo kala tuura ma lahan marka see loo dhigi karaa arrintan dil waaye mudana dhiikay su'aal ayaan ku weydiinayaa muuqaalkan adiga xaggeed ka heshay ilaa cc camera wax ay duubtay aniga ayaa ahaay horta anigoo ah madaxa sanseedka qof kastoo adig idinka mid ah tilaabo walba uu qaadayo aniga waa aan la socdaa ma fahanteen sidaas daraaddeeda aniga ayaa kaabagalaas idin ah mudana karishnaa arrinkan adiga inaad samayso kuma saxnid waxyaalo annaga qaas noo ah oo gooni noo ah jiri karo wax qaasoo aanan muuqaninna cid idinka mid oo samayn karta haba yaraatee ma laha haddii aad khalad yar gashaanna wuxuu samaynayaa dhaqaalaha hindiya sidaas daraaddeeda waxaa muhiim ah awooddiina inaad ogaataan iyo meelaha daciifka ka tihiin waa qayb ka mid ah habdhaqanka santikeed haddeertan muhiimaddaan dib ugu laabanno si taxadirana waa inaan fiirsannaa muuqaalkan aad u jeedin youtube channelka ayaa lagu daabacay qof ayaa cunigan wuxuu ku badbaadiyey awood dabiici ah muuqaalkan xigana si fiican u fiirsada qof kale qof ayaa awooddiisa ku riixaya ninkan aad u jeedin ee safreeja lagu magacaabo waxaan u malaynayaa labadan muuqaal aad u jeedin inuu xiriir ka dhexeeyo waa dilkii saddexaad ee black society-giina sidaas daraaddeeda waxaa loo baahan yahay qof walboo annaga naga mid ah feejignaantiisa inay dheeraato maadaama ninkaas uu asigana soo raadinaya waxaan ku khasbannahay annagan inaan asiga raadinno maxaa dhahday mudana hadalkan kaa soo dhexgalay garaal noqo hadiyada mudana safraajna uu soo dhiibi oo hadiyada safraaj maya soo dhiibin meeshiisa waa inaad dhigtaa dhaqso waxaan rajeynaya qof walba hadiyadda uu qaatay midii saaxiibkiisa oo kale in ay la mid tahay aqay asiga wuxuu ahaa mataqanin boodhikaarkayga khaaska ah si fiicanna waa inaad ugu feejignaataan dhammaantiina macnaa odigan anigasna u ciyaaraya miyaa duqmada noocan oo kalena uma qalmaan miiskan in ay soo fadhiistaan tani cayaar maahane ogaada ee waa dagaal ma fahanteen madaxiisa waa in aan soo gooyaa weliba miiskan aan soo dul saaraa ma fahanteen haddii madaxiisa aan soo goon weynana dagaalkan waxaad ogaataan anaga madaxyadeenna in aan ku weyn doonno aniga riyadeeda waxay ahayd dk asaga baaritaan inaan ku sameeyo tiinii waxa ka dhacay iyo sidoo kale sifraaj dhimashadiisa wax qusayaan raba inaan ogaada saasee tahay waxna aaminsanahay subar bini'aadanka ilaa iyo hadda inuu nool yahay aniga tayda haddii aan ka hadlana ninkan la yidhaahdo dk ayaan aaminsanaa oo weliba aan u hogaansanaado qaacidada asaga uu leeyahay asaga intuusan annagana soo raadanin waa inaan raadinaa iyo sidoo kale tiim asaga si toosa ugu dhammaynaya inaan helno waa muhiim dhalinyaro aad baan idin salaamayaa mishinkan aan idin diraya maahan mishin iska caadiya qofkan idin dirayan maaha bini'aadan waa halisteeda kala wadata subar bini'aadan waa ma garataan wuxuunu awoodaa asaguna dhaqdhaqaaq samaynin inuu anaga kow naga siin karo saamayntiisa ayuu wataa ku dhowaad waxaan u dirnay 35 gangistaro gangistaradaas annaga aan dirnay ma jirto hal qofood oo dib u soo laabtay dhammaantooda kow ayuu ka wada siiyey annaga dadilayaal iska caadi ayaan nahay sababta noo doortay maxay tahay ii sheeg anyway guys xogtiinu dhammaystiran aniga ayaa gacanta ku haya waxaan rabaa kiiskan in aad ku guulaysataan oo ninkaas kow aad ka siidaan targetka hal meel ayuu ka jilicsan yahay meeshaasna aniga ayaa si toosa idinla wadaagayo markaan idinla wadaaga kadibna waxaan rabaa meeshaas inaad bartaan doorigaan ku samaysa khatartiisana waa wataa waa maxayna toosrakis targetkeena meel sidaanoo kale ayuu ku jiraa haddii uu ku fikirana inuu niyeysto waxaad ogaataan inuu halkaasi ku dhimanayo middaas ayaa noo sahlaysa targetkeena halkaas inuu ku dhinto asaga
aabbahay waqtigu joogay baaritaan ayaa ku sameeyey sidoo kale baaritaanka samaana joojin oo ilaa hadda weli waan wadaa 30 sano ka horna waxaan soo ogaaday asaga gurigiisa waxaana u diray rag gaaraya ku dhawaad 100 qofood si ay asaga u soo afduubtaan gacanta ugu soo dhigaan 100kaas qofood hal mar ayuu ka taqalusay isla mar ahaantuba gacanta nuujiyo dadkoo dhan sidaas ay ku dhimanayaan mudana Omkar sidaas ku suurta gashay noo sheeg kullu waxay haataba way u suura gashay sababtoo daawada uu isticmaalay ayaa ah daawo saameynteeda wadata taasaan u suura gelisay inuu guulaysto waxaana caddaynaynaa awooddaas asalkeeda meesha ka yimaada maalinta ku xigtana xog kaloo dhammaystiran ayaan kula wadaagi doonaa dhammaanteena waa idin salaamay halkan aniga ayaa idinku yeeray go'aan ayaan gaaray oo weliba muhiim ah sidaas daraaddeed inaan idin sheegayo halkan u imid warshad cusub ma furaysaa mismaala yacni kiimikalna nagu beerta horta dulqaad sameey markaan wax kuu sheego kadib le soo hadal shan qofood oo keliya ayaa hartay hal mar libirsada oo keliya madaxyadoodu dhammaystiran ayaa waxaa si toosa loogu soo diray ninka la yidhaahdo DK Black Society waxaa haray 2 qofood oo keliya mid waa aniga kan kalena waa DK kadib dilkii xumaa markuu dhacay dadkii Black Society kala shaqeynayay markuu ogaaday ninka la yiraahdo DK asaga wuxuu ogaaday halis in ay soo wajahday asagoo noolna si toos ah u soo wacay DK waan ku maqlaa nin arin ayaa i haysato idii madoway aniga la shaqeyn jira ayaa wax iga xaday marka waxaan u baahanahay inaad ii timaado si aad wax ugu qabato okay walaal adiga inaa cabsata lama baana sababtoo ah garabkaaga anaga taagan cid wax ku gaarsii kartaa beeraatee ma jirto adalkeyga sax ma aho cabitaanka iska cab iska raaxaysi yaqee waqtiga qaado boorsadan wax ku jir ma ogaan karnaan ii sheegbo boorsadana u jeedin diiki ayaa iska leh asiga ayaa hadeertaana raadinayo waxaad ogaataa gacantooda ku dhigo dunidoo dhan uu baabeynaya cid gaaraysaa beeraatee ma lahano هي مشكلة kale ayaa jiro dil loo noqonayaa markaan ma fahant gabadhaada sidee tahayna aad ay u fiican tahay aan xogta kale ee mishinkaaga waan ku soo diray ma fahantayna hay wad aragtaan oo maleynaya DK shaqadaada waan ogolahay laakiin intaan ka badan inaan sii shaqeeyo maro maxaa yeelay waan ku daalay mar walba sidaan dhiig u daadinay dhiig karan inaan daadiyo diyaar uma ahi
runtii horta Solomon gabadhaada markii aad weysay daawo adiga aad ku daaweyso macnaha dunida meel walba aad u tagtay ma la socotaa qofka ku caawiyay oo waliba gabadhaada daawadeeda saxda ah soo helay aniga in aan ahay marka aniga waan ku caawiyay nolosha gabadhaada ayaan na caawiyay anigana waxaan rabaa sidaas oo kale inaad ii caawiso ma fahantay waan ogolaaday kaba soo qaad hadeertaan waxaad ku qasbantahay wax waliba oo saaxiibkaaga kuu diraa inaad ogolaato mii fahantay horta aniga xogta mashinkan waan soo akhriyay balse qofkan aad sheegaysaan ilama ahan bini'aadam inuu yahay asagoo idin dunidan hubka yaalana inuu wax ka tarahay ilama ahan hub kale waa inaan u adeegsanaa horta qof walba way adag tahay runtii wax walba asiga keligiisa inuu curiyo balse haddii dhinac loo fiiriyo way fududahay boorsadan hortaada taala qalabka ku jira si macnaha dunidoo dhan loogu faafiyo waxaa ku jira curiyaal birar oo weliba cuseeb ma fahantayno oo dunidoo idil aad ku baabi'in karta hal mar asiga ayaana waxyaabahaas ka mid ah gocelkaas baabi'iisa ayaan u baahanahay aniga kadib aslam ayuu shaqadii u diray tani ayuuna asaga si toos ah inuu aaday xogtaan ayaa mid ah waa maasan tahay omkara maadaamaad ii sheegtay xog fara badan oo arrinkan ku saabsan dhegeyso zed securitigayga maxaad ka leedahan adiga omkara adiga sad balaas aad la joogtaa amnigaagana waa sugaya inaa cabsato looma baahna anagaa ku difaacayna cid wax kuma gaarsiinaysa mahadsanid ayaa faatika waan ku salaamay adiga waxaa tahay farsamayaqaanka ugu sarreeya dalka indiya gabadhiisa dadka kaleetana waa tahay qisadana wax fara badanaad ka ogtahay ii sheeg marka qisadan waxaad ka ogtahay takaani markaad tagtiin wiilkii ma soo heshin xaggana maxaa ka dhacay فلورسكينا هذا أمها سنتين هاي أبو هاي gabadheeda waan kaa qaaday akhay maxaa akhbaaraad haysaane maya anigu waxa uma rabo وما ستين فلورسكينا oo kale aaba bulshada miyaa ganacsi la bilowdayne ka ganacsi maana haddaba ee bulshada ayaan u adeegaya ogo bulshada miyaa u adeegaysaa bulsho u adeega miyaa isku beddeshan wasiirka wiilkiisa ma taqaanaa nasrifaan macna haa runtii asiga waxa uu dhashay asigoo cuuriyaan ah maxaa ku hadlaysaana aniga darteeda ayuu lugihiisa ku helay wasiirka horta lacag far badan ayuu dunidan ku bixiyay si uu cunugiisa caafimaadkiisa ugu fikiro laakiin waxaasoo dhan wax waa u qaban waayeen lacagtiisa xabad way u gali weysa maskiin anigoo i imaaday ugu dambeyntii siduu igu calaacalaye ugu dambeyntii anigana waan asxaan falay oo cunugiisa ayaanba u daaweeyey ma fahantay hadeertaan aniga darteeda ayuu cunugiisa xaaladiisa ay ugu fiican tahay yaqay maxaa kaloo ku dhihi lahaa aabba weligaa ma isbedelaysadee midda kale anigii saaxiibaday teeni ayaan beritool u soconaa waxaa rabnaa janalkeena inaan barnaamij usoo duubno marka qorshahaas ayaan xagga ka leenahay beelo nasiib wacan ayaan ku leeyahay waa mahadsantaa aabo haya wax walba waa la diyaariyay soomaana ninkaas annaga waan dili karnaa howsheenna waan qaban karnaa soo sax maala waay dk aabahayga siduu u dile waan og anigana gabadhiisa waan dilayaa waa ballan aniga waan argudanaya kursigaasna ku fadhiisanaya agni mar labaad ayaa riya aragta miya haa waaye maxaa ku riyootayne ma sheegi karo mana xasuusto sidee ku iloobaysa isla waqtigii ayaa baltaagan yihiin aniga waan ogaha wax walba inaad xasuusan tahay intaad iga qarinaysa dhible kugu noqonaysaa la soco waa ogahay laakiin waa ku barya waqti isii oo keliyey waayahay
gaajo makos nakeene nakeen tali agni sardaad ashoog rameesh iyo anigaba shanteennaba fiidiyooga markaan daawane oo youtube-ka lasoo dhigay kadib waan baxnay waxaan aadna teeni weliba waxaan raadinayna subar biniaadanka walaal aniga youtube channel ayaan u shaqeeyaa shilka meeshaan ka dhacay wiilkii duulaya oo dhulka ku dhacay ma aragtayne ma taqaanaa qofka badbaadiyey kii duulaya dhulka ku dhacay sama aan kalama badbaadisa iyad la u dhacay aan kalama ayaa inoo eedna may ma aqaana qofka badbaadiyey gabadheeda arey naga tag waa waalantae maxaa dhahday walaalka wiil yaris oo duulaa maartane yaa si badbaadiye ii sheeg bal anaa soo badbaadiyaa ku dhahay ma taqaana may ma ka saay soco markaas awood khaasaa leedahay be awood khaas anaka dhanaaba leh laashin noocaas meesha ma ka dhicina ku dhahay shaqadaada qabsi iga tagay mashquulin hadee waa ku taga adeerka kaashka isii dayaa walaalka aryaamaha ka gudsoco saaxiibbi dhegayso shaqadan aan iska dhaafno maxaa yeelay faa'iida ma lahan wakhtiga ayaa noogu dhammaanaya waxyaabo kale dadka xiiseynayeen waa inaan raadinaa hayaaq aniga fikirkaas ay la fiican waxyaabo fara badan ay dadka jecel yihiinna way jiraan saaxiibow waxay la tahay mataqaanaa muuqaalkaas inuu feeg yahay marka inaan iska dhaafno ayaa noo wanaagsan anaga xataa waa ku raacsana agni aan iska joojino anaga mid muhiima ayaan ilowna horta qofkii arabnay inaa dadka weydiino ma ana weydiina dad kaleeta ayaan weydiina anugu yarka qofka badbaadinayay waxaa laga yaabaa inuu meeshaas ka imaaday ama dariskii uu yahay amaba oo iska soo boqdo meeshaas saas darteed isaga inaan weydiinmo ama aan raadino ma inaan booqano waaye markaas kadib waxaa laga yaabaa wax walba inaan helno qof walba ficil ka bixinaa beritool waxaan u baahanahay macnaa inaan raadino cunugaas yarka qofka badbaadinayay 3 tim isku qaybinayna afatika iyo waadiyaasheeda tim bina waa aniga iyo sadaad tim waxaan rajinaa warkayga inaa fahantiin mid kaloo siyaadaan idiin sheegaa aniga ninkaas kama quusanay wax walboo dhaco diyaaraan ahayna wajo isdiyaariya marka labadiina meeshaan igu sugo anigaa soo hubinaya marwa maalmo ka hor cunug yaroo dhallinyaraa ayaa meeshaan shil ku gala weli wuu ka badbaaday ma taqaanaane maalmo ka hor cunug yaroo dhallinyaraha meeshaan shil ku gala aqoon ma u leedahane cunuga shilka gala ma taqaanaa weligee ma arkinbe maya weligee ma arki ane waxaa ka ogaya mala qofa meesha ku arkanum jirto maya ma kasaay waayo waa maasan tahay mudane shila 2 maalin ka hor meeshaan ka dhacay mudane nakan yaqatay wajiga candufas nagu dufin abaay wiilka raadinays waa qaanaani yaa waaye magaciisa dineesh aqoon miyaa u leedahay waa qaana marwo meesha haramcadka shilka ka dhacay ayaan hore waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo meeshaasoo ka ciyaalaa warshada holo waa warshadee meeshaasna warshada holo waa meesha soo aalaas okay waa maasan tahay yariiska su-aalahayga haddii aad ka jawaabto aniga chocolate ayaan ku siinaa okay taaniish waddada goynaysa miya si boombila aad u soo iibsato kadib maxaa dhacay sheegay malkaas ani waa uldaaye malkaa uldayna gaali xoog balanaa soo bax jugoona i siiye hay kadibna anigana waa taxay malkuu jugu siiye kadibna kolaa u boole kola aale kadib maxaa dhacay
yacni adig ma booday mise qofaa ku bootiyey si uu kuu badbaadiyey fikir may qofi bootiyey ma jilin meeshtanna qof ma jooga aan kaligeele ahaa marwo waa nadiif okay mudane waan helnay oo hadda waxaan ku samaynaa noo sheeg cilwadana uu sheeg muuqaal waa in laga soo duubaa kadibna waxaan rabaa aabbaheeda inaan u diro weliba ayadoo gacmaha laga jabinayo hooyadaa muku arkiisa markaas maxay kuloo kuu sheegtay sheeg hooyle malkay aragta anigaaliga malka igu taxay kadibna kole aala wadnaha laga qabtay laakiin malkay ogaat ani inaan fiicanahayna wadnaha xistoo woodiyey kadibna ayla way caafimaatay hooylena waxay tahala malkaa dhibaato ku jirtid ilaahay inaa balisid waaye kadibna aad dhibaato laal u sheegtid dibkoo dhanna waa kaa baxa allina waa caafimaalaysaa saas ay tahle may sidaan kama helin aniga maskaxdeeda waan bedelay dila gabadha waxaana taala qof walboo dhibaato ku jira ma waayo qof garab siiyo caawiyo horteena qof soo istaagaya kadibna anagoona badbaadina
xog muhiima ii sheegtay ballagni hadda iska cab yahay cab adiga horta tiim black society dad ogtahay waxay ku wada dhinteen isla warshadii duqda ahayd adiga iyo tiimkaagana tiiniyaad aadeen sidii super bili-aadan ama super human aad u soo raadaysaan super bili-humanna waa isqariha ininkaas dilkooda adigii maa ka dambeeyey mise ayagaa isdilay ii sheeg xaqiiqada bedelka isaga soo qabaleed maalayacan iyo waraysiya igu dhumisaan bes iga dhowriya qof noocaasoo kale ma jiro macquulna maaha saas ugu wareeya tali maxaa jiro caddee muhiiman ku haya ninkan la hadal haye sidee u yili ninka ninka horta nin dheeras ahay gerna waa lahay sigaarna waa cabay gacantiisa bidix hadis nuuxji waxa bibi waay gacantiisa midigna saas camal mudan gacantiisa markii saa u tar gacanta hadis taagan ninka xaggiisa ba soo aadaya birta ku tuurna xitaa waa qaloocahay annaga leen ku soo laabanay waxaaba ka daran xabadihii lagurida korkiisa ma bataabahayaan isnaftirkiis waa talay ha isi wahay okay iga qaad hadda way aamintaan u malayna taliye arrinkan wax luga inaan ku lahayn okay fani kadib maxay kuu sheegtay afartika ashog irshma aawen xafiiska ayaa shaqo lagu soo sheegay kadib anigana waan fasaxay agni arrintan inaan iska joojino ninkan bini aadan ma ahan wuxuush waa aragtaa waa ku baryaa intaan iskaga ekeeno wax walba hey adiga ninkaas hadda wuxuushe sababtu ku badbaadiyay maxay tahay markii aabahe ayaan wacanaya hey afartika si fiican ii dhegeyso waxaad dareemayso oo kale aniga waa kula dareemaya waana ku fahansanaysa waxaad i fahmayso ma lahan weligaani ma fahmaysan kule adiga mar walba dantaada oo keliya ayaad ka fikiraysaa taana maba ka fikiraysidee afartika yaqan waxna aniga dartiga uma samaynayo janaalkayga dartiisana uma samaynayo inay ifaantan way kugu adagta soo maha waxaan dhan madax adagay ku baaba'ayan kabran maxaan ku fahmayaa nin noocaasoo kale adduunyada haddii uu ku nool yahay systemka adduunyada oo idin waa bedeli kariya wawba qiyaas afartika mina ninkan nin adduunya muxuu ku badbaadiyay adige sabab fahanoo fikir yaqa awoodda noocaana tatanbedeleeda la dhahaa ma taqaanid idigiis wuu ku baryaa hadalkaygana faan waayaadhe igu kalsoonow waayaadhe waa ku baryaa faan hayadhe hayadhe waa ku baryaa hayadhe afartika garkaygana haystaa waayahay mahadsanid mudane waa ka xumaaya akhay aan waxba ma suubinin sawe shit dhammaantiina doqomatiin howl yaraan idiin diri sidaasay taana waad qaban weysan kabar hal gabar yaran soo dila idiin dhahay mudan ad xaaladaa ma fahmaysid ciidankii aan u diri mid ka mid a isbitaalkas jiifa sawe war adaaba ka daran kaale qof kale u dirta ma weyse us ma bahadlaay be hadalkiisa
wixii isku hadlay iyo wixii kale maba la kala fahmayse waay maxaan sameeyaa markani yaa akhay usiga nin odaga sheegooya haddana dad farma saaraan ku dhahay saas ay tahayna ciidanka dhan waa baabi'iyey marka anigu maxaan ka qaban karnaa meesha ii sheegbo oo macnaha siduu aniga si toosa ugu imaan waay maadaama shaqada laga joojiyay asiga Black Society shirka yeestan kadib sirteenas ogaaday banaankeenas keenas rabaa si dhammaanteen asnoo baabi'iyo oo haddartan booskayga miyuu rabaa mise in aabbihiisa dhimashadii loo geystay inuu argudo ayuu u baahan yahay waan kala fahmi lahaa ilaa hadda arrintaa meelan u raaca ayaan fahmi lahay super biniaadanka uu dhiigka uu sheegaya la armuu yahay ma mudane yaabay kaasne maxaan kuugu sheegaa carruurta maalmahan iska jirtaaba saaniska aabaheeda inaan dilo oo ayadan aan qaninaan ku fikirayo laakiin adiga sheeko xiriirada bilay maata ka baran nafteeda inaan dharbaxay bay iga heystaa maadaamaan adiga kugu kalsoonaada mudane hadda anugu waxba ma ogaanin inta anugu waxaan ka ogaayn tallaaba qaadin at yaqay hey shibigale waxaan sameynaa aniga aqaane mudane waa kutuwa hooshaan aan joojinay yaqay haddii kale dhibka sii weyn aan qorta gashaheena okay waay inta arsan dhibaato malahan aniga membarku u sheegaya robertka sidoo kale hubka waxa dhan anigaa kontaroola ma fahantay laakiin dadka aniga iigu agdhadhow meesha waan kontarooli waay macnaha daleed inaan dhaha raba wuxuushku asiga ka hadlaya waa rag anaga naga mid a macnaha qaraabadeena waa anugu noo dhowya waxaanu baanaa xogtiisu idil inaad ii keento dhaqaaq soco warya dhaqso dhaqso waa sidaan hore kuugu sheegay ninkaas xunka aniga gacantaada soo gelinaya laakiin labadaas hol aad ii diraysid marnaba kuma qaban karo oo jawaabtaada sidaas miyay noqotayna hadda ma awoodo shaqada inaan qabto qalbigaygan ima siina marnaba hawshan oo kale inaan ku dhaqaaqo aabe shimay soo laabanaysaani dhiigkee maya waa ku baryaa gabadheedu waxbaa ku sameeyay waxaan ku dhaho ma dhihi kartaane wax walba aan ku dhaho waa inaad dhahdaa aabahaaga okay aabo adeer bombalo isiiyey haddii aa u sameemayso waxa uu rabo bombalahaas asiga wuu jijibinaya dhiigkee maya sidaan aan sameyn dhiigkee ka joog waniyow keliya waxaan kaa rabaa shaqada aan qabo ku dhaho waa in aad qabataa ma fahanta qofkaas aan kuu diraayo bini'aadin caadi ah maaha laakiin waxaan rabaa mataqaan balaayada u wada inaad ka hortagto maadaama geesi aad tahay waxaan rabaa howshaas inaad qabato okay markaa shaqada dhammaysan waad soo wici kartaa naga tag dheh
markaasi kadib BK wuxuu uu diray asaga sinimo si uu u isticmaalo qaacidada asaga loo diray baqshadii hore ayuu si toos ah u aaday weliba waxay ku taalay tini isla mar ahaantaas qaacidada la siiyey iyo sidoo kale raggii aan u xilsaaray dilkiisa si toosa waxay u aadeen tani وروح عوامحه ان ارجون طريق نوكعنو maya boos laakiin meeshan 5 daqiiqo kor layso nolama tusin horta aniga jiraydkan ka akhristay boos kuwaana markooda hore tuuga yar ayay iska ahaayeen xaafadaha ayay iska joogeen taajiriinta carruurtooda ayay afduuban jireen kadibna lacago badan ayay dalban jireen intaas wixii ka dambeeyay magac ayay bala baxeen magacaas oo ah burcadda qolfoofta dhiigga booliiskana sidaas darteed ayay u raadsanayeen dadkan wax yar ka hor ayay dhinteen ninka anaga aan raadinayno meelahan kama fogo si wanaagsan loo raadiyo hey asxaabta halkan soo fiiriya bal xabadda meeshan ayaa laga tuuray weliba dhankan ayaa lagu tuuray laakiin waxa balayaab leh ninka xabadahooda ma aysan ku dhicin dhiigna kama imaanin hadda xabaddan fiiri lokeeshikiisa sidee ku weesh mid anaga naga mid ah ayaa wuxuu isku dayay baaritaan in uu sameeyo bal fiiri waayo aragnimada halka ay gaarto waxaana ogaataa mar kasta oo dabagal aad samayso inaad ku guulaysanayso muhiimadday taho dabagalka tamarta iyo shucaaca ayaa garab nagu siisay ultrasonic wifiska inaan anaga dabagal aan ku sameyno waxaana u adeegsanay deviceska dabagalkaas marka la sameeyey kadib waxaa la soo ogaaday warshada qadiimiga inaysan ahayn warshad cusub balse locationka muusan noqon sidii la rabay waxaar kadibna wuxuu noo sheegay location kale cusub in uu joogo isla mar ahaantaas baraggii gangistrada ahaa halkaas ay u jeesteen si ay u soo dilaan targetkeena 5 kilomitir oo noo jiraa dhaqso 3 kilomitir baro noo jiraa 1 kilomitir 700 mitir dhaqso maxaa sugaysaa ka gaarsii jooji maxaa dhacayna locationka halkaan noo sheegaa meelahan ayuu joogaa waa inaad fiirisaan maxaad ku hadlaysaa waa kana fiiri bal meeshiisa way ku laabtay gaari dib u celi rifis geli dhaqso yaaqi dhaqso jooji bal fiir halkan yaaqi locationka labana tusaya haddana see wax u jiraan dhanka midig u bax dhaqso dhanka midigaa rabaa dhaqso he hey GPS ka muuqaldan ya hortaadoo soco bidix tooskaaga aad dhaqso hey inteen aadayna anaga meeshan waddo nagama jirte baabuurka inuu naga halaaw maarata maxaa ka qaldan locationka halkaasuu sheegay haddaa adiga ka bixi karta ka baxniyo maxaa samaynaysaa hal midaan sameynaynaa adinka dabagala anigan intaan idinku sugaa wax yar kadibna waan idinka daba imaanaya
jaa meesha maba jooga baka war meel kaloo aada la leeyahay say wax u jiraan waryaha adiga yaa tahayna sideese Black Society ula tartami kartaana 24 qofood ayaa gacantaada ku dishay mid walba ayay ka mid ahna 50 qofood iyo wax ka badan ayuu soo dilay adigana ka waran qof walba waxaa jira meel uu ka daciifsan yahay adigana halkan ayaad ka daciifsan tahay nacsiyo khaladkii kuugu weynaa ayaad gashay maanta haddii aad wax isku hayso soo sabriyaa birar cusub oo curyaal ayaa meesha ku jiraan asigana waad ku baabiin kartaa xitaa adduunyada idil ayaad ku baabiin kartaa haya arjun gaariga jooji ayaan ku dhahay mudana mkaar deviceskaad adig yihiin meel walba aan tagnana waan ka weynaynaa hadda 2 meel ayay noo tilmaamaysaa mid 5 kilomitir inoo jirta midna 10 kilomitir device-ka dhibaato ma laha si wax jira waxay la tahay hadalkayga inaadan fahmin duhurkan 2 saacadood ayaan ku dhex wareegaynaa mid baan rabaa inaan ku xasuusiyo qofka raadinaysaan ma ahan bini'aadan iska caadi ah ee waa super bini'aadan oo weliba halistiisa wata waxaa idinka rabaa idinka taxadirka inaad badisaan marka aad weeraraysaan waxaad si toos aad ugu weeraraysaan gaaska markaasna waxaa sahal idin noqonaya inaad dishaan shaqadan dhax ma ugu tegeyno waa sii wadanaynaa nakeen soco waad fiicanta soo maha maxaa kugu dhacanaysa naqaska xooga okay nafta ma tiri ora arjun gari jooji hay waad fiicanta soo maha xaaladada sidee waay neefso waay halkan fadhiiso tartiib u neefso qofkan dabagalka aan ku hayna annaga wuxuu bilaabay si toosa gangistirada annagaan u dirnay inuu ugaarsado boos targetka annaga ma dabagelayno ee targetka annaga nasu dabagelayo guys targetka ceel badana tali annagoo 3deena hoteelka u sii socono dad dhar madow xirnaa ayaa annaga wadada waqtigaas noo galay targetka wuu nagu soo dhow yahay
hub ayaa nagu soo taageen su'aalo ayaana weydiin ayagoona wareysanaya su-aalahan idin weydiin oo keliya ka jawaaba wax kale haddii aad sheegtaan ogaada madaxaan idin dhufanayna yaa tihiin adinka halkanna maxaad ka soo doonteen anaga youtubera ayaa nahay halkan waxaan u imaanay inaan video sameyno subar bini'aadanaan raadinayna ku celimo subar bini'aadan maa dhahday aha mudane subar bini'aadan ayaa raadinayno halkan wax kale ma imaan waxaran taqana waras yarna ka qaadano dhibaato kale mudan oo ku baryana sidee yaa tihiin hubka wadatanna waa maxay meeshana maxaa ka samaynaysaa shibdha wariya naga aamus muxuu yahay kan muxuu isla shaqaraa hey haye ii sheegay adiga ku weydiina maxaa waaya kan yaa idin badbaadiyey dadkaas dilayaasha waa kuma cidi dilasha masuba bini'aadanaa imaaday mise isagaaba micnaha ma idin badbaadiyey dadkaas afarta ah ee dilayaasha ah yaa dilay asxaabay raalli naqda khalad ayaa idin fahnay marka naga raalli naqda boos heya ragga su-aalaha idin weydiiye waa iska bixisan ii jawaaban oo maxaa idinku dhacay سداد 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 هدف كل ما انا ياشك ودن سمح ماي 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 ماي
سدد سدد سداد سدد 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 أغني 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 حاجة وسعتانة warkaala saaxiibada been mayaad u sheegaysay xageedii saama iska baxe afnikiita iska bax nabadgelyadana ka shaqaynaya waqti wax kugu sharaxmayso qof wuxuu sheegaad ku soo baxday sababtaad iga qarinaysa ma ii sheegi kartaa waxaan iskaga kee dhigaysa inaad jecesha jiliin ayuu ka waxaas dhan jiliin ma wado waqti wax kugu sharaxna ma hayaan ku leeyahay iga fogow dantada ka shaqaynaya waa ku barya sida u waayo kale inuu ku weemaro afnikaati hayso dabagelin haddii kale waxaan samaynaya ma aqaan mar kale kugu celinaa hayso dabagelin adiidan kugu jirtataa هاجني وكبري عسيدنا كوبين waxaa jooga waqtigii waraysigu dhamaanay waqtigii ma la yaraad ku dhamanayso wabay jooguriya eegni hooyo fadhiiso eegni see ku heshay sawirkeeda fadhiiso istaji see ku heshay sawirkeeda adiga xogta hooyada haddaad rabto inaad ogaato warkayga si fiican u dhegeyso laga bilaabay maalintii bilowga aad wax walba iigu soo sheegtay labadiina horta waad isdagaasheen mid ka mid ah adiga ayuu ahaa weelala-ah qorshe ayaan degaynaa anaga si black society gacanta aan uga soo wada dhigna laakiin waxaa dishay safiraaj markhaati horta waan weynay CCTV baaritaan aan ku sameynay markii uu dhintay kadib laakiin waxba waan ka weynay laakiin taaniya muuqaalka laga soo duubay adiga ayaan kaa dhex aragnay wax walbana adigay kugu xiriiraan markii backgroundkaaga aan isku daynay inaan soo hubino waxaan soo ogaanay xogta familkayga laakiin qof ayaa la-aa sabir bili-aadan adiguna ahaa kan la-sanaa adiga shuf fiicana soo bandhigtay axsan waad ka buuxsatay ogow laakiin dadka masaakiinta la awoodaad tastaagni ii sheegi marka maxaa dhacay halkaasna ka dhacay aabbo macaan ma fiican tahay
indhihii hooyada oo kale ayaad leedahay. inaan arkaan u baahnahay wejigeeda ma arki karaa? waa familkaaga. waan ogahay waxaad i weydiin rabto. aniga ma garanayo aabbahay asxaan inuu ii sameeyey in kale, laakiin waa uu i diray isaga. anigoo dhiman raba ayuu igu daray daawo kale, kadibna waxaan yeeshay awood zaa'ida. maalinba maalinta ka dambaysa awooddeeda way sii zaa'idaysay. markii ay awooddeeda dhammaystirantayna waxaan isku dayey inaan kaantaroolo awooddeeda, laakiin ugu dambayntii waan samayn waaye. hooyadaa barafati ayaa nolosheeda ku soo biirtay. markaas kadibna waxaan noqday qof sida bini'aadamkao kale u nool. nolol ayaan helay, carruur ayaan dhalay, sidoo kalena jacayl ayaan helay. waxaana ahayn famil farxad aad iyo aad u weyn ku nool. ugu dambayntii hitler markuu ogaaday daawada meesha ay taalana wuxuu isku dayey inuu xoog ku qaato. ciidan ayuu noo soo diray, kadibna xabad ayay nagu fureen. xabadaas ee noo adeegsadeenna waxa ay kaliftay guriga oo dhan inuu gubto. ugu dambaynna hooyada halkaas ayay ku dhimitay, ayada iyo walaalka kaa weynba. intaas wixii ka dambeeyey adiga ayaan bannaanka kuula soo cararay, weliba anigoo oynaya, waayo wax kale ma awoodin inaan sameeyo. haddii aan isku dayi lahaa ayaga inaan la dagaalamo, dhib intaas ka weyn ayaa dhici lahaa. ugu dambayntii duurka ayaan u soo cararnay, kadibna waa ayna soo weerareen ayagoo gantaalo nagu soo ridaya. ugu dambayntii shil ayaa dhacay. shilkaasina adiga ayaan kugu waayey. maadaama aan ku waayena ayaga ayaan dib ugu soo laabtay anigoo xanaaqsan. waxaana ku khasbay gacantooda inay mid iskugu dilaan ayaga. markii aan dib u soo laabtay adiga ayaan ku raadiyey. ugu dambaynna waa aan ku waayey. waxaana ogaaday dhammaan familkayga in ay baaba'een, keligayna aan noqday. markaas kadib aniga xanaaqayga iyo awooddeeda midnaba waa kaantarooli kari waayey. dadka ii dhadhow oo dhanna dhibaato ayaan u geysanayay. kadib waxaan go'aansaday keligay in aan noolaado, dadkana dhibaatadayda aan kala fogaado aniga. intaas wixii ka dambeeyena duurkan ayaan ku noolaa aniga. intaas waxba maaha. waxaan samaynaynaa wax jiniga ka daran, hubkana sidoo kale ka daran. wiilkaygiiyo aniga ma doonaya inaan dad kale dhib gaarsiiyo. keligay inaan noolaadaan rabaa. aniga sanado fara badana sugay waqtigan oo kale inaan micnaha maalin un gaaro. aniga meeshan waxaan u imaaday si adiga aan ku wado, laakiin markii intaan imaaday kadib waxaan ogaaday libaaxaba duurka inuu joogo inuu xushmad ku leeyahay. adigana meeshan inay joogtaa ku fiican tahay. horta meeshaan maadaama xusuustaada ay taallo, mar kasta waan imaan karaan u malinaa. mar walba waad ii imaan kartaa. waxaan rajeynaa mar labaad inaadan iga tegin adigoona ii sheegin markaa baxayso. hoya tada kale libaaxa wuxuu libaax dhaba yahay markii uu familkiisa uu haysto. adigana taasaa ilaabiyaa. inaad cafisa ayaan rajeynayaa, maxaa yeele waddo kale iima bannaaneen aniga maalinkaas. sawirka hooyaday ma haysan karaa? inaan haystaan raba baba. waad haysan kartaa. hay macsalaama aabba, macna waa sii baxay. waraabaha waa inaan ugaarsadaa aanna baabi'iyaa. shaqadeeda waa intaasoo keliyay, waa inaan usoo dhammeeyaa. dhegeysi wiilkayga, waxaan jeclaan lahaa intaadan bixin inaad habisiisa hal mar.
sabab aba macaan waad u qalantaa adiga dunida inaad badbaadiso balse waxaad u socotaa aadamiga inaad baabi'iso dhulkan 45,000 hektar ayuu ka koobayaa indiina aniga oo kaliya ayaa ku filan inaan baabi'iyo haddii aniga adiga meeshaan aan isku dagan la ogo xayawaanada ayaa baaba'aya labadiina waxaan kala qaadayna malaha dabiiciga aan badbaadino soo bax adduunyadan aadina qofka dabiiciga uu yaqaana naftiisa sida loo badbaadiyo ha ilaawin dunida meerayaasheeda inay dinosaurka ka dhammaadeen ayaga waa saxan tahay anigaaba meera ah adiga aqoonaad ii leedahay jir kastoo soo baxana aniga ku facayaan nahay intaan isaqaniinka badana adiga aqoon ii leh adiga waxaanoo dhan doqonnimadaada ayaad u samaynaysaa doqonnimo maaha ee doqonnimo xadkeeda dhaaftay oo waxaan sameynaa hooyada haddii ay noolaan lahayd way ku celin lahayd ayada xilliga iyada ma ijoojinaysa mise adiga ijoojinaya markii aan wuxuusnimadan oo kale samayn jiray cidii qaban jirtay ma lahan marka waan ku baryaa maskaxdaada deji waxaan kaa rabaa inaad keligaa meel fadhiisato si fiican aad u fikirto taasi waqti uma hayo aniga inaad baxdo kuma ogolaanayo haddii aad awood oo aad ii celi karto بس يا ويلكيغي انت انا نغو فلان معقول ما انت كبدنا انا اسمع لي كرو وانكو بريا ويلكيغي
ha samaynin mid aan waxaad fahmaysa malaha waa in aa aargutaa aniga dadkoo dhanna waa inaan baabi'iyaa waa kuwii hooyadii dilay dabkii halkaas ka kacay hooyadaa kumaysan dhiman black society waxaan ka dambeeyay ayagana sabab u ahaa aniga waxaan rabay inaan ka hortago waxay rabaan waddankiina baabiyaan dhirtiisa baabiyaan shacabkiina baabiyaan siin u fiirsadaan u aamusa waa inaan ka hortaga awooddeedana waan leeyahay aniga dadka dhan waa baabiyey qof walba waan dilay kala qaybsanaantan waa inaan ka hortaga waajibay ugu tahay ciidan kala tashana haba yarata male adigana mi hor istaagi kartid waan samaynaa waanan dilaa cii jooji karta waa wareegsunta gaaska maaskan ii xiran ayaad u baahantaa soo maa haddaad xerato waad ku badbaadaysa aniga ahow laakiin ugu 15 daqiiq gudahooda adiga waad ku dhimanaysaa waad ku baabay waxbaha ka walweyn waa markii ugu horeyso noloshaada aad dhiiggaaga arkaysid soo maa dhib ma lahan haddeertaan intaan inka badan ayaad arkaysaa calaamadan aniga ayaa iskale waana dhaxalkayga qof walba oo isku daya inuu iga qaato asiga ayaa ku burburayoogo aabbahaaga adiga kumuusan badbaadin sidoo kale adigana aabbahaaga waad badbaadin weyse soo maaha bistooladan iyo baalootada ku jirtaba adiga ayaan mar hore kuu diyaariyo meel kuu dhigay macaanka wuu dhammaaday subar bini'aadinimadan waa ay dhammaatay sheekadeeda atama walaalka sida tahay waa ku salaami walaal horta qarax markuu dhacay oo gurigeena ka dhacay aniga iyo hooyo gudaha ayaan ku jirnay oo waan suxnay dabkana waa uu kacay adigii aaba waa baxdeen waxaad u malaynaysiin annaga inaan dhimanay markii aad baxdeen kadib aniga waa idinka daba qiilshay awoodeyda ayaan isticmaalay awooddeydana hooyaday ayaan ku badbaadiyey saas darteed banaankan u soo baxay waan idin raadiyey habeen iyo maalin duurka ayaan idinka fiirshay waan idin waayay dhibka intaas kuma ekeene daawadii ayaan sii isticmaalay hooyo waxay igu dharisay inaanan mar dambe awoodeyda aanan isticmaalin waqtigaas kadibna awoodeyda aniga maanan isticmaalin sheekadana subar beliaadan weli maysan dhammaan
Goodbye, DK. ciidankii aad diraysa dhammaantooda waa la dilay waan la socdaa waxaasoo idil haye diyaar miyaane I am weaponized.